بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حلمتم والله سوماليد ملد جوجتان بإله سبحانه وتعالى إذا كان ما يلو عدي دبنبك الله كقاضو عدي دن الله وفي انت بهن الله ديقو انت بكت الله بكسيه انت دمت الله ونحرستو والدينتنا الله ونحرستو annagana allah nooga daba naxariisto dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo waxaan maanta ka hadlayaa qodob kelmad baan ka hadlayaa la wareejinayay oo la leeyahay farmaajo wuxuu imaanayaa Nairobi oo wuxuu ka qayb gelayaa shirar iyo hadal kale oo isaguna bariyaha la wadwaday oo dad badan ay weydiinayaan farmaajo iyo imaaraadka maxaa ka dhaxeeya labada shayba waa been abuur dadka beentan faafinayaana waa qolo haadgeed waaye maqli jirteen haadgeed waaye meelay aadaan bay waayeen ciday wax ku darsadaan cid wax ku darsatay waayeen wax rabay waayeen waxay marka bilaabeen fal xaasid iyo dacaayad iyo been abuur iyo farmaajo waa murashax rajada uu leeyahay aad bay u sareysaa uu tartamayaa marka ugu horeyso doorasho ay diyaar noqoto uu ka duwan yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed saad aragteenba labada qodob aan ku taageernay Soomaalina danteedu ku jirto waa imaaraadka inuu dalka ka cayriyay iyo international community-ga inuu kursi la ku fariisiyay labada qodob ugu muhiimsan waxa kale oo dhan waa tabac arrimaha gudaha ciidamada in la dhiso in musuqa la diriro oo dadka loo nabadgeliyo amnigooda loo amaansiyo hantidooda oo hantida qaranka aan la boobin oo aan la iibsan guryihii iyo dhulkii ummaddu ay lahayd inaan iskuuladii la xaraashin waxaas oo dhan waa tabac weey waa arrimo ka hooseeya in dawladaha dariska lagula noolaado mutual respect iyo mutual interest dawladii isa soo qallajiso damacday inay ku soo faragalisana wada la saaro ilaa ay iyadu soo laabato oo ay saaxiga keento waa dhaqamada u lahaa nin siyaasi xor ah aragti leh aragtidiisana ku maamulo qabyaalad iyo cheap shot meelo hoose inuusan ka shaqayn dadka uusan qaarna qabiil ku taageerin qabiilna ku fogeyn waxyaabaha uu taageerada ku helay yahay walina uu ku haysto qaar baa marka wax isku dayay xagasho ma maqli jirteen nindaad qaaday xunbo cuskay waa qolo meelay aadaan waayay xasan rajo ka qaba xasan diiday nimanka xasan siyaasadda ka day waa niman hoogay oo baay xasan waa doon degaysa imaaraadka saf bay ugu jiraan siyaasiyiintu ninka kaliya oo record leh oo taariikhdiisa ay ku jirto inuu dalka ka saaray waa farmaajo waxaan ka qaban doonaa xalaqaad dhowr ka qaban doonaa oo ku saabsan sidii dawladdaasi ay ula dhaqantay imaaraadka iyo sidii imaaraadku intay damceen inay Soomaalida ku dayaan xilligii ninkaas madaxda ahaa ay markaas ay darbi madaxa ku soo dhufteen kadibna looga saaray dalka ana xalaqaad dhowr ka qaban doona farmaajo waa murashax cid mucaarada ama imaaraad wato ama ma garaysa qolo kale ay wadato oo uu group la yahay ma jirto war xumo lagu waa dad badan baa i weydiinaya qadiyada imaaraadkuna waa cheap shot hadda ka hor waa u mahmaahaya dhalinyaradaas beenta ka dhigtay awoodda intaad qaaday xumbo cuskay waa maqli jirteen xumbo waa isku dayaa inuu cuskado intuu moodo inay culays leedahay ama ay xajin karto isaga oo xumbada daadkii ilaa xumbu sameeynaya xumbadii buu isku dayaa inuu qabso wuxuu qabsan karaba qabsu isleeyahay marka xumbo xataa waa cuskada gabar baa hadda ka hor waxay tiri wadaadada ikhwaanka la yiraahdo waa nimanka salafiyiinta ah ma jecli bay tiri oo waa niman xun oo suuq bay ka sheekeynaysaa hay maxaa ku nacday waxay tiri waxaan ku nacay gabdhaha ay masaafaystaan markaasaa islaamiyii meesha joogay intay ku qosleemayeen waa xaafadda keliya lagu yaqaan inay ka soo horjeedaan masaafaday diideen waa ku eedayn kartaa laakiin gabdhaha ay masaafaystaan ma taa lagama aqbalin farmaajo xaafadda keliya uu ku shaqo tegi karo inuu international community-gana persona non grata wax la yiraahdo baray oo dibadda u tuuray intuu soo wacay ugu sareeyay يعني قرك وسارين إنه هالمر لحد ما يجعلان لهاين انتو صوع تمي او صدح مع المود او اسكو حتى لما مع المود هدلي لبا جير صوع تمي
isagoo baryayo le ka noqo go'aankii la yiri iska daa waxaas wax tagay weeye haysan waa ku daayay mid kale keenso ninkaas xabada isaga leh international community inuu siyaasadda Soomaaliya ka saaray hadhow waad arki doontaan mid siyaasi oo wax ka dhexdeeyo raadinaya magaraysa raadinaya been ka sheegaya sida kuwaan oo kale imaaraad inuu dalka ka saaray isagoo la shaqaysan kara oo ka eriyay xaqiiq weeye marka shirka Nairobina waa fake news been abuur iyo falxaasid qadiyada imaaraadkana isla qoladaas wada been bay saa ula wareegayaan mar baan magacyadooda sheegi doonaa haddii loo baahdo hadda ma